السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا بيجكيغا maanta waxaa idinku soo gudbinayaa 7 waxyaalood oo ka baabi'inaya madoobaadka indhaha ku hareeraysan ee loo yaqaan dark circles indhaha agaarkiisa wuxuu leeyahay xuub khafiif ah oo ah 0.5 ama nus millimeter sida awgeed dadka qaar ayaa sababto in ay muuqato madoobaadkaas midoo kale arinta kale oo sababi karta waxay tahay maadaama capillaries indhaha hoostiisa uu ku leeyahay in maaragtay madoobaad u muuqato markii uu quraxda ku dhaco marka waxaan idin soo gudbaa marka waa 7 waxyaalood oo ka baabi'inayo madoobaadka indhaha ku saabsan midda koowaad waxay tahay caffeine inaad isticmaashid maadooyin caffeine ku badan tahay sida kafeega ama shaaha madow maadaama xataa waxyaabo qaar oo laga sameeyo daawooyin loogu talagalay in waxyaabahaas ay baabi'iso midaas waa midda koowaad midda labaad waxay tahay tea bag inaad isticmaashid tea bag waxa inaad qaadatid oo saartid hareeraha indhaha si ay mataqaanaa waxyaabahaas madoobaadkaas ay kaaga yaraadaan arinta saddexaad oo loo baahan yahay waxay tahay in aad haddii aad qabtid eye allergies ama allergy indhaha uu leeyahay inaad isticmaashid daawooyinka antihistaminiska yareynayo allergiga markuu jirka ku bato jirka wuxuu soo deenayaa histaminiskaas badanaa waxay sababaa wax leedahay eye bag ama bararka indhaha hoostiisa dadka badanaa aad ay isugu qaldaan madoobaadka iyo bararka laakiin saas ay tahay weliba hababka loo daaweeyo waa aad ay isugu dhow yihiin oo habka madoobaadkaas loo baabi'iyo ayaa sidoo kale aad u baabi'i kartaa haddii aad qabtid bararka indhaha reerihiisa ee loo yaqaano eye bags midda kale oo isticmaali kartid waxay tahay makeup inaad isticmaashid makeupka wuxuu marka qaar sameynaya inuu u muuqdo qofka in madoobaadkaas uu ka yareeyo marka waxaa jira maadooyin makeupka oo markaas ka yareynaya muuqaal ahaan inuu madoobaadkaas uu ka yaraado in aad isticmaasho cold compress ama baraf inaad indhahaas ka saartid ama bar hareeraha sida marka qaar ay sababtaba haddii uu wax kugu dhaco meelaha gacanta oo kale sida barafka loo saaro oo kale ayaa u saari kartaa lafirkeeda waxyaabo qabow ah si bararka ama madoobaadkaas uu kaaga yaraado sunscreen creams creamo markaa sunscreen laada lotion ah oo loogu talagalay in maaragtay la mariyo wejiga ama hareerahaas maadaama ay jirkeenu u nugul yahay qoraxda markii uu ku dhaco kale in aada ugu darto sida awgeed ayaa isticmaalaysaa creamkaas oo hareerahaas markaa marisid uu kaaga yaraanayo arinta kale oo kaa yareyn karto waxay tahay inaad heshid nasiimo fiican ama hurdo fiican 7 ilaa 8 saacadood hurdada inay u dhaxayso si maaragtay jirka markii uu nasto laftirkeeda waxay kaa yareyn kartaa waxyaabahaas madowga ama bararka indhaha hareeraha ee ku saabsan haddii intaasoo dhan ay kaa saacidayso inaad la xiriirto dermatologist ama dhakhtar qaabilsan maqaarka si uu daawooyin ama wuxuu kaaga saacidi karo kaaga saacido arinta ugu dambeysa waxay tahay mar walba aad banaanka u bixaysid inaad qaadatid sunglasses ama ookiyaalo madow ah oo markaas kaa yareynaya qoraxda UV lightka ee toos kugu dhacayo arrimahaas 7daas ah oo aan sheegnay waxay kaa yareyn kartaa madoobaadkaas indhahaaga ka soo baxay bararka inuu kaa yaraayo haddii aad video aan ka heshay like saar wixii aad comment qabtina hoos comment garay waxaa inoo ballanaa video xiga mac salaama